السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتوا هاي تاي بشتون أفريقيا والله ورك الدبلوماسية إنتوا كاين الدنيا ده وحكم ده محاكا صوب بحي شركي مدحدة الصومالية إيه سومالي لان إدل كاسي جبوتي تليها بوليس كلا أطلانا أي إيس عسيشي كدي بدلكي بوليس وجيستين رايشارد بروكيس ومحي موقف كموسبيحي أولا تجي شركة دلكاسي جبوتي كان عيمانتا halkaad ka dhageysanaysaan warkaasi waa bilkhayr TV aan warkeena ku bilowna ee waa xagga iyo Djibouti magaalada Djibouti ee caasimadaasi dalka Djibouti waxa maanta lagu soo gabagabeeyay shir maanta ku dhex maray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa jamhuuriyadda gooni isu taageeda ku dhawaaqday ee Somaliland shirkan oo ay marti gelinaysa dawladdaasi dalkaasi Djibouti ayaa waxa ergada labada dhinac kala hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya محمد عبد الله فرماجو يمدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي ورمرتياد لغا سو ساري شركاسي ايا لغو شيغاي in lagu heshiiyay in la sameeyo guddi farsamo oo wada jira kuwaasi oo hawsha halka ka sii wadi doona isla markaasina dib u eegi doona waxyaabaha hore loogu heshiiyay in labada dhinac aanay siyaasadayn kaalmooyinka horumarineed iyo maalgashiga iyo dalka Djibouti oo uu noqdo madasha kulamada dhanka farsamada ee lagu sii dhaqaajinayo wada hadalada u dhaxeeya labadaasi wadan hasa ahaatee agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo fariin soo dhigay bartiisa Facebook oo ku leeyahay ayaa sheegay in warmurtiyeedka lagu faafiyay baraha bulshada uusan ahayn midkii rasmiga ahaa isaga oo sheegay labadan qodob ee soo socda labada qodob oo soo qaatay Cabdinuur Maxamed Axmed ama uu sheegay ee warmurtiyeedka ah oo kala ah kow warmurtiyeedka lagu faafiyay baraha bulshada maaha mid rasmi ah wali waa laga shaqeynayaa si qoraal la isla ogol yahay oo sax loo soo gudbiyo laba wada hadalada waxay u dhaxeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Somaliland ee maaha wada hadallo u dhaxeeya Somaliland ama Soomaaliya gudaheeda sidaasi ayay warbaahinta qaar ay qorayso furitaanka kulankaasi waxa khudbado ka jeediyay madaxda loo garqaadaya ee dhinaca Soomaaliya uu hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha Soomaaliya ah iyo dhinaca uu horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland oo madasha ka jeediyay khudbado kooban ayaa carabka ku adkeeyay halka ay markii horeba ka halowday arinta Soomaaliya iyo Somaliland wuxuu sheegay in dib u bilaabida wada xaajoodka ama wada hadalkan oo taageero ka helaya beesha caalamka ay yihiin kuwa aad u muhiim ah oo uu sheegay sidii loo abuuri lahaa xiriir nabdoon oo cagab buuxa ku taagan oo u dhaxeeya shacabka Somaliland iyo Soomaaliya jamhuuriyadda Somaliland waxay xornimadeeda ka heshay dawladda boqortooyada Ingiriiska 26 Juun ee sanadkii 1960 xorriyadaasi ayaa laga diiwaan galiyay qaramada midoobay waxaana Somaliland aqoonsaday 35 wadan isla markaa Somaliland ayaa si iskeed ah Soomaaliya ula midowday kowdii Luulyo 1960 si loo yagleelo jamhuuriyaddii Soomaaliya midowgaasi ma ahan mid sharciyan wax ku ool ah maadaama heshiiskaasi midnimadii aan si rasmi ah loo wada saxiixin sida awgeed dadaalada midnimada ay ka hooseyso heerka caalamiga iyo kan maxalliga ahba ayuu yiri Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland weeye waxa uu sheegay Mr Biixi in 30 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ay dagaalo joogta ay ka socdeen ama ay ka jirtay halka ay ka jirtay horumarka Somaliland iyo dhaqaale ahaanba amni ahaan iyo maalgashiba ay wadankaasi jamhuuriyadda Somaliland ay si rasmi ah uga shaqeynayeen arrintaasi oo uu sheegay in si kala fogaanshaha iyo kala shakiga iyo cadaawad ay u dhaxayso labada dhinac hadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa sheegay
inay ka go-an tahay sii wadista wadahadalada iyo isu soo dhaweynta labada dhinac. aniga iyo walaalkay Muuse Biixi waxaan halkan u joognaa in aanu ka gaarno adag si dadkayga u helaan mustaqbal wanaagsan amaba dadkayaguba, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. dhanka kale waxa kulanka goobjoog ka ahaa madaxweynaha martida loo yahay ee Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Abiy oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleystay abaalmarinta nabadda Nobel Peace Prize ayaa sheegay in waxa maanta shirka wada fadhiya ay yihiin dad isku qaysa oo haddana daris ah walaalana ah. kani waa shir ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan ama ka wada tirsan hal qoys. weligee waxaan sheegayay in wadamadeenu ay isku xirto hal xudun. waxaanu nahay walaalo wada dhashay. waanu ku khasbanahay inaanu taa ku fahanno. walaalayaal, geeska Afrika waxa uu soo maray muddo dheer oo ay ka jirtay dowlad xumo iyo hoggaan guur daraystay, waxaana la qabsanayay burburkii, qaraxyadii iyo muddo 10 sano ah oo dhaqaale xumo ah, kuwa oo ka dhashay colaad xumo, aqli xumo. waa in aan arrintaasi wax ka bedelnaa oo aanu bilownaa bog cusub, ayuu yiri madaxweynahaasi dalka Itoobiya waa Abiy Ahmed. waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay dhibaato badan ay soo mareen, balse ay yihiin dad wanaagsan, isla markaana maskax furan oo ganacsi aad u xeel dheer amaba ku xeel dheer ganacsiga, ayuu yiri. waxaana uu intaasi ku daray in shacabka Soomaaliyeed ay haatan sugayaan wax wanaagsan oo ka soo baxa wada hadalkan. weli waxa aynu dhex mushaaxaynaa shirkii. faahfaahin dheeraada ayaa waxa ka soo baxaysa kulankii furitaanka ee shirkii maanta ka dhacay dalkaasi Jabuuti ee ay wada yeesheen Soomaaliya iyo Somaliland oo goonistaageeda ku dhawaaqday muddo badan oo haatan ku dhow 30 sano. waxa halkaasi khudbado ka jeediyay madaxda labada dhinac ee Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhinaca kale Somaliland oo hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. madaxweynaha Somaliland ayaa madasha ka jeediyay khudbado kooban oo carabka ku adkeeyay halka ay marayaan hawluhu iyo arrinta Soomaaliya iyo Somalilandba. tan iyo markii Somaliland si aan ka fiirsi lahayn ay iskeed ula midowday dowladii Soomaaliya, waxa ay la kulmeen cadaalad darro, faquuq iyo xasuuq, taasoo soo maray amaba ay u maleegeen ciidamadii dowladda Soomaaliya ee xilliga hoos yimaanayay Maxamed Siyaad Barre. waa sida uu carabka ku dhuftay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. waxa uu ku dheeraaday in dhibaatada loo geystay dadka Somaliland aanay ahayn mid afka oo kaliya ku kooban, hase yeeshee dhinacyo badan oo kala duwan ay diiwaan geliyeen. cadaymaha dambiyada dagaal ee baahsan ee lagu bartilmaameedsaday dadka Somaliland u dhashay ayaa waxa si buuxda u diiwaan geliyay guddiga gaarka ah ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha, guddiyada xuquuqda aadanaha iyo golaha Somaliland ee dambiyada dagaalka, ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. dhanka kale madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegay in loo baahan yahay in lala dareemo dhibka ay dadkiisa wajeen xilli ay indhaha ku hayeen raadka xabalawadeeryadii xasuuqii dadkaasi loo geystay, sida uu hadalkiisa u dhigay. falalka xasuuqa ee ay soo maleegtay xukuumadii Siyaad Barre ayaa waxa laga helay in ka badan 2,000 oo xabaalood, aan idhaahdee 200 oo xabaalood dalkeena ku yaala, buu yiri. xabalawadeeryada ilaa hadda muuqanaya ayaa weligood cadayn u noqon doona dambiyada bini'aadanimada ka dhanka ah ee ay dowladii Soomaaliya u geysatay dadka rayidka ama shacabka Somaliland. madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa uu ku
waxa uu ku talinayaa sidaa daraaddeed si aanu u wajahna buu yidhi xaaladda haatan taagan ee Somaliland iyo Soomaaliya waxa laga maarmaan ah in dib loo milicsado wixii dhacay oo aynu wax ka baranno wixii laga dhaxlay howlgalkii ka dhanka ahaa dadka Somaliland ayaana noqon karin mid si fudud lagu hilmaami karo ama lagu ilaawi karo balse waa inaan wixii dhacay la qiraa waxana la qabtaa iyada oo la tixgelinayo xuquuqda dadka Somaliland ay u leeyihiin in ayahooda ka tashadaan iyo inay xorriyadooda ay helaan khudbadahaasi madaxweynaha Somaliland oo haatan inoo soo gaartay ayaynu nuxurkeeda intaasi aynu ku dhaafi doonaa imikana dhanka iyo Mareykanka taliyaha booliska la adkaana ayaa iska casay kadib markii jimcihii askari boolisa uu toogasho ku dilay nin madow ah oo gaarigiisa isku dhex hurday oo lagu magacaabo Richard Brooks oo ah 27 jir waxa fiidnimadii jimcihii toogasho ku dilay askari boolisa oo ka tirsan ciidamadaasi dalka Mareykanka maayarka magaalada Atlanta Keisha Lance ayaa sheegtay taliyihii booliska Erika Shields inay sabtidii iscasisheedeeda soo gudbisay mudaharaadayaal careysan ayaa wadooyinka Atlanta isku soo baxay iyagoo dalbanaya in tallaabo laga qaado askarigii dilka u geystay Mr. Brock fiidnimadii axadda waxay mudaharaadayaal careysan ay xireen wadooyinka waaweyn ee magaalada Atlanta ee waa Georgia iyaga oo dabqabadsiiyay maqaayad cunooyinka fudud lagu iibiyo oo uu ka dhacay dilka Mr. Brock loo geystay saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyay kumanaan shacab ayaa mudaharaadyo uga soo horjeeday dilkii Floyd ay ka sameeyeen magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka George Floyd oo ahaa nin madow oo aan hubaysnayn oo booliska gacantooda ku jiray Eric Shields ayaa taliyaha booliska Atlanta ayaa ahayd tan iyo December 2016 iyadoo ku dhawaad 20 sano kala soo shaqeynaysay waaxda booliska Atlanta maayarka magaalada waxay sheegtay Erika inay shaqadeedii boolisnimo ay ka sii wadanayso qaybaha kale ee booliska ee magaalada warkaasi hadkaad kala socotaan waa Bilkhayr TV